Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maantay muuqaalkeeni muuqaaladii hore waa uu ka duwan yahay. Dabcan in badan ayaan kala bashakiyay inaan soo daayo, haddana waxaan isleeyahay waa muhiim in qatarta aan idinkaga digo. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa kutub lagu magacaabo Shamsul Macaarif Al-Kubra. Kutubkan waa mid ka mid ah kutubada ugu waaweyn ee sixirka, waxaana la sheegaa inuu yahay kutubka ugu weyn ee sixir laga qoro taariikhda. Waana kitaab uu shaqsi waliba akhrisan karo, misna uu ka baran karo sixirka. Muhiim ma ahan in uu horay sixiraalo u soo ahaa shaqsigaasi ama uusan weligiiba sixir gacmaha la gelin. Dadka qaar oo akhriyay ayaa waxay sheegeen in marka ay bilaabeen akhrintiisa ay arkeen shaqsiyaad leh muuqaalo laga cabsado, weliba ay dhibaatooyin waaweyn u geysteen naftooda. Inta aan ku guda jirno muuqaalkan, waxaan diiradda saaraynaa taariikhda qoraaga buugga iyo weliba sheekooyin laga soo wariyay dadka akhristay. Waxaan caddaynayaa in aan kaga digayo qof waliba in si tijaabo ah ama dheedheel ah uu u akhriyo buuggan, sababtoo ah ma ahan kaliya inaad naftaada u geysan doonto dhibaatooyin, balse waxay kaloo culimada isu raaceen in qofka akhriyaa misna wax ka bartaa buuggan uu gaaloobayo. Magacaygu waa Maxamed Xuseen, kusoo dhawaada xalqadeena maanta. Kutubka Shamsul Macaarif Al-Kubra ama markii hore loo yaqiinay Shamsul Macaarif li Tawaa'if Al-Cawaarif waa kutub daraasaynaya sixirka, waana mid ka mid ah kutubada sixirka ee ugu waaweyn dunida. Kutubkan wuxuu sanadihii dambe zaa'id ugu faafay wadamada Carabta, ilaa heer maantay daabacaadda kutubkan aad ka iibsan karto suuqa online-ka ee Amazon. Wuxuuna ka kooban yahay xarafyo iyo lambaro, sidoo kale waxaa ku jira aayado quraan oo lasoo jarjaray, qaar ka mid ah magacyada Alle iyo magacyada malaa'igta, kama marna magacyada ambiyada iyo rususha, iyo magacyada jinka. Kutubkan waxaa la qoray 622 Hijriga oo ku beegan 1225 miilaadiga. Buugga asalka ahna waa buug adag, waxaana la sheegaa in uu dhab ahaantii u suuragelinayo kuwa akhrinaya in ay fahmaan astaamaha ay ku xakameyn karaan jinka, in ay fuliyaan falal sixir oo aad u khatar ah. Laakiin nuqulada hadda laga heli karo kutubkan, waxyaabo badan oo aad u saameyn badnaa ayaa laga tiray, kuwa kalena waa lagu soo kordhiyey. Qorista kutubkan waxaa loo nisbeeyaa Axmed bin Cali Al-Buni oo ahaa caalim dalkaasi Jazaa'ir ka soo jeeda, balse ku noolaa dalkaasi Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira. Culimo badan ayaa isku raacday in ninkan uu yahay gaal ayagoo u daliishanaya kutubkan uu qoray, balse waxaa jira dad kale oo ka soo horjeeda arrinkan oo leh waa lagu been abuuranayaa caalimka, una heesto in uu yahay weli ka mid ah awliyaasha Alle. Waxaana lagu sifeeyaa in uu ahaa qof dadka aan dhexgelin, ma lahan wax caruur ah ama saaxiibo ah, xitaa ma uusan lahayn arday wax ka barta. Si kastaba ha ahaatee, Al-Buni wuxuu ahaa caalim wax badan diinta islaamka daraaseeyay, wuxuuna qoray buugaag aad u tiro badan oo badinkoodii ahaa buugaag guuleysta. Markaan eegno buugga Shamsul Macaarif, waxaa la sheegaa in cilmiga sixirka ee buuggan ku jira aan marnaba laga helin buugaagtii hore ee laga qoray sixirka. Dad badanse ayaa aaminsan in uunan qof bini aadam ah qorin buuggan, misna uu yahay buug ay qoreen jinka. Bilowga buugga waxaa lagu caddeynayaa in buuggan loo qoray sida dadka muslimiinta ah ay u bartaan qaabka ay u adeegsan lahaayeen jinka iyo shayaadiinta iyo wixii la midka ahba si ay u gaaraan hadafka ay leeyihiin. Laakiin gudihiisa waxaa ku jira dhibaatooyin fara badan oo ka soo gaara qofka akhrista. Wuxuu barayaa sida loo sameeyo sixirka madow oo xaaraan ka ah diinteena. Wuxuu kaloo barayaa magacyada jinka iyo sida uu ugu yeeri lahaa misna uu ugu amri lahaa in ay u adeegaan. Buuggan wuxuu kaloo ka kooban yahay waxyaabo badan oo aan la fahmi karin, sida sawiro iyo lambaro oo ay muhiimaduna tahay in lagu dhibaateeyo shakhsiyaad. Daabacaadda asalka ee buuggan inta badan dadku waxay aaminsan yihiin in lala aasay Al-Buni kadib markii uu dhintay. Dad kalena waxay dhahaan waa la gubay, kuwa kalena waxay aaminsan yihiin in uu weli yaalo dunida, misna la qarinayo. Almuhim, lama haayo buugga asalka ah ee Shamsul Macaarif. Bal haddeertaan aan eegno qaar ka mid ah qisooyinka ay noo soo wariyeen dad akhriyay buuggan, misna sheegay in ay la kulmeen waxyaabo badan oo argagax geliyay naftooda. Qofkan wuxuu leeyahay, rabitaankayga ku aadan buuggan wuxuu bilowday kadib markii aan maqlay asxaabteyda oo ka wada sheekaysanaya in uu jiro buug lagu magacaabo Shamsul Macaarif oo kuu keeni kara jinka, misna aad u adeegsan karto wax waliba oo aad rabto. Isla markaaba waxaan go'aansaday inaan akhriyo buuggan oo aan daabacaaddiisii helo. Kadib waxaan helay daabacaaddii buuggan, wuxuuna leeyahay waxaan ku noolahay dhul iska baadiye ah oo ku yaala dalkaasi Yemen. Meesha aan deganahayna aad ayuu ugu badan yahay buuggan. Dabcan ma ahan wax aan la yaabno, sababtoo ah Yemen waxaa lagu tiriyaa wadamada Carabta ugu badan ee sixirka laga isticmaalo. Wuxuu leeyahay kadib markii aan helay buuggii,
waan baxay oo waxaan aaday qol aan horay u seexan jiray. Kadib wixii nal ah ayaan iska dimiyey. Waxaan bilaabay inaan cod dheer ku aqriyo mowduucyada khatarta badan ee buuggan uu xusayo. Waxaana la yaabay in buuggan uu ka hadlayo arrimo ku saabsan sixir anfacayo dadka iyo kuwa kale oo aad u khatar ah misna dhibaato weyn ku sababaya dadka. Waxaad awoodaysaa in aad taabasho ku daaweyso dadka xanuunsan iyo in aad ku amarto jinka in ay wax ku qabtaan. Laakiin in aad samayso arrimaha sixirka ee buuggan ku jira waxay ahaayeen mid aad u adag. Wuxuu u baahnaa ku celcelin badan iyo in aad sabarto. Haba ugu muhiimsanaatee inaad rabitaan dhab ah u muujiso iyo aad adeeg, sababtoo ah qofka daciifka ah ma sii wadi karo aqrinta buuggan. Waxaan sii waday aqrinta buuggan oo waan ku adkaystay, misna waxaan bilaabay inaan sameeyo falalka meeshan ku tilmaaman. Wuxuuna leeyahay waxa ugu horeeyay ee aan tijaabiyo wuxuu ahaa daboolka qarsoomida. Waxaa loola jeedaa in uu qofka gashanayo koofid deedna uu qarsoomayo asagoo dhan. Wuxuu leeyahay waxaan buugga ka bartay sida loo sameeyo koofidaasi iyadoo laga sameynayo haraga ama maqaarka rakaha. Waxaan raacay tilmaamaha saxda ah ee buugga ii sheegayo. Waxaan ka sameeyey koofidii, kadib waxaan galay qolkayga oo waan gishaday koofida. Waxaana bilaabay inaan aqriyo buugga ilaa aan is arkay anigoo u dhididaya si aan caadi ahayn. Waxaan bilaabay inaan maqlo codad ka yeeraya hareerahayga. Waxaan arkay humaaga shakhsiyaad ku sawiran derbiga. Saacaddan waxay ku begneed abaaro halkii saacabeenimo ee saqdi dhexe. Waxaan dareemay cabsi aad u badan. Buuggii ayaan daboolay, misna koofidii ayaan iska tuuray. Waxaan go'aansaday inaan seexdo, balse hurdadii way iga iman weyday. Muddo markaan sariirta saarnaa ayaan waxaan maqlay cod qosol ah oo ka yeeraya sariirteeda hoosteeda. Kadib waan argagaxay oo waan booday oo waxaan shiday leerka ama nalka qolka oo waxaan eegay sariirta hoosteeda, balse waxaan arkay shakhsi aad u weyn oo sariirta hoosteeda yaala. Ma aqaan sida aan noqday. Waan ka cararay qolkii oo waxaan aaday qol kale. Meeshaasi ayaan habeenkii iska seexday. Habeenkii wuu dhammaaday. Subaxii dambe ayaan soo aaday qolka. Kadib markaan soo galay waxaan arkay buuggii oo meesha yaala sidaan aniguba ugu tuuray, balse koofidii ma aanay yaalin. Wuxuu leeyahay ma aqaan meesha ay ku dambeysay koofidaasi. Mar dambena maanan arag. Sidoo kale ma joojin inaan aqriyo buugga. Muddo kadib waxaa bilowday in ay igu dhacaan waxyaabo dhibaato badan u geystay nafteeda. Gudaha madaxayga waxaa ka yeeraya codad aan kala joog lahayn. Mugdii aan dhammaad lahayn ayaan galay. Waxaan arkaa sida inaan ahay qof lunsan mararka qaar. Ma aqaan meesha aan joogo. Wuxuu leeyahay mararka qaar waxaan dareemayaa in ay wax ii kaxeynayaan, misna ay igeenayaan meel aad u dheer ama wadamo kale oo aanan aqoon u lahayn. Asxaabtu waxay marar badan igu dhaheen in dhibic iftiin ah ay ishaydu leedahay xilliga habeenkii. Inkastoo aan kadib iska dhaafay inaan aqriyo buugga, haddana arrinka mar waliba waa uu ka sii darayay. Waxaan marar badan dareemayaa ciriiri iyo in neefta ay igu dhagayso ilaa aan mararka qaar ordo oo aan tago buurta noogu dhow si aan hawo u soo helo. Waxaan jeclaa inaan keligayga ahaado oo ma jecleen meel ay dad badan joogaan. Waxaan bilaabay inaan buuggaasi oo dhan iska dheereeyo. Wuxuu kaloo leeyahay in marka aad buuggani iska dhaafto ama aad gubto xitaa micnaheedu ma aha in ay arrimihii ka harayaan ee sidii ayay ku daba taagnaanayaan. Waxaan bilaabay inaan si joogto ah u aqriyo Quraanka Kariimka, waana ku faa'iiday dabcan. Halkaasi ayuu ku gabagabeeyay sheekadiisa. Waxaa jira qisooyin badan oo la mid midan iyo kasii xunba, balse ma aqrin karno oo muuqaalka ayaa aad u sii dheeraanaya. Waxaan rajeynayaa in qof kastoo idan ka mid ah oo arkaa qisadan iyo kuwa la mid ahba in uusan u dhowaan buuggan. Dhibaato aad la kulanto inaad ka baxdo ama horumar aad rabto inaad gaadho kuma gaarsiinayo inaad kaalmaysato jin iyo wixii la mid ahba. Kan kaliya ee wax kuu tari karaa waa Allah subxaanahu wa tacaala. Waman yatawakkal cala Allahi fahuwa xasbuh. Alle ku kalsoonow, dhibaatada asaga ayaa kaa dulqaadi kara, dheefna kugu bedeli kara, horumarka aad rabtana ku gaarsiin kara. Ka digtoonow inaad aaminto ama aad adeegsato buuggan iyo fikradaha la midka ahba. Sababtoo ah dhibaatada aad ku jirto kuwa ka daran kana xun ayay ku horseedayaan. Muuqaalkan la wadaag dhammaan asxaabta aad la jeceshahay oo ugu dig khatarta buuggan iyo inta la midka ahba. Halkan ayaan kaga baxayaa muuqaalkan. Soo dhawow haddii aad nagu cusub tahay oo ku soo biir kanaalka. Hana ilaabin inaad like garayso lana wadaagto asxaabtaada. Fikirkaagana nogula wadaagto qaybta hoose ee commenteska. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Amaana Allah. Waa inoo muuqaalka kan xiga.